Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran janaalka marka la soo dhawaada. Ku bilaabo guddiga Koongareeska Mareykanka u qaabilsan la xisaabtanka ayaa maanta waxaa hortagay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo xeeralyaha guud ee gobolkaasi Keith Ellison. waxaana wax laga weydiinayay arrimaha musuqmaasuqa gobolka Minnesota oo lacagihii loogu talagalay dadka in lagu caawiyo ee ceerta ahaa in barnaamijyo badan la musuqmaasuqay lacag aad u fara badan oo dawladdu ay leedahay waa 19 bilyan laakiin wali cadeyn aan loo haynin in la musuqmaasuqay. marka Jim Jordan oo Ohio laga soo doorto oo isla markaana ah gudoomiyaha guddiga cadaaladda ee Koongareeska Mareykanka ayaa su'aalahan waxa uu weydiiyay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz. waxa uu sheegay in waxaad runta waa inaad sheegtaa uu yiri gudoomiye Tim Walz ururka Feeding Our Future waxa uu yiri waxa markii hore lacagaha la siinay ahaayeen 3 milyan sanadkii u horeeyay laakiin sanadihii xigay 200 milyan ay lacagtu gaartay. marka waxaa jiray dad badan oo arrintan hore uga dhawaajiyay musuqmaasuqan markii uu cusbaa isla markaana waxa uu yiri bishii Maaj ee 3 sanadkii 2021 lacagaha waa la joojiyay kadib markii musuqmaasuq la arkay. sababta dib loogu bilaabay lacagtaasi bixinteeda maxay ahayd? waxaan ogeyn xilligaasi waa jirtay wasaaradda waxbarashada oo lacagaha Feeding Our Future siinaysa markii ay joojisay maxkamad ayaa haweeneydii madaxda ka ahayd Feeding Our Future ay tagtay Amy Back waa tii maxkamadii ku guuleysatay oo haweenka Soomaalida xafladda intay u qabteen ay u baraanbureen isla markaana la siin jiray dahabka. marka gudoomiyaha gobolku arrintaasi waxa uu uga jawaabay arrintaasi waxaa jirtay maxkamad u ogolaatay in lacagahaasi loo fasaxo ururka Feeding Our Future. dhinaca kale Jim Jordan waxa uu weydiiyay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz gobolkaada imise qof ayaa dacwada lagu soo oogay imise qof ayaana Soomaali ka ah dadka dacwada lagu soo oogay. gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu ku jawaabay anagu dadka baaritaan uguma sameeyno dacwadna uguma soo oogno inagoo ku saleynayna isirkooda diintooda iyo waliba halka ay ka yimaadeen. marka Jim Jordan ayaa isla su'aashii ka jawaabay wuxuu yiri 92 qof ayaa dacwad lagu soo oogay 85% waxa uu sheegay inay Soomaali yihiin. haddaba waa kan mar kale in doodii dhaxmartay Jim Jordan iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota. dhinaca kale haddii aan eego doorashooyinka xilliga dhexe ee Koongareeska Mareykanka November dhamaadka sanadkan ayay dhacayaan laakiin waxaa bilaabmay oo bisha Maaj hadda aynu ku jirno bilowdo inta badan Israel reebka gobolka Texas oo si aad ah loo eegayo ayaa doorashooyin ay shalay ka dhaceen Israel reeba. dhinaca Republikaanka 3 xubnood ayaa ku tartamaysay kursi sanadka ah oo Koongareeska Mareykanka aqalka sanadka. waxaa jira John Cornyn oo 24 sano kursigaasi hayay ilaa iyo sanadkii 2002 ayaa waxaa la tartamaya Ken Paxton oo xeeralyaha gobolka Texas ah iyo nin madow ah oo la yiraahdo Wesley Hunt. doorashadii marka waa lagu kala bixi waayay shalay mar labaad ayaa la isku laaban doonaa. musharaxa konton ka badan boqolkiiba hela ayaa soo bixi lahaa laakiin ma jirin musharax cod intaas la eg helay. John Cornyn waxa uu helay 43.1 boqolkiiba halka Ken Paxton uu helay 40.4 boqolkiiba. marka labadooda ayaa doorasho kale lagu celin doonaa bisha May ee shanaad ee soo socota. Wesley Huntna waa iska haray. marka Trump labadan xubnood midkoodna ma uusan taageerin laakiin bartiisa True Socialka ayaa qoraal uu ku soo qoray waxa uu gobolka Texas waa gobol aad u weyn oo aan jeclahay 3 mar ayaanan ku guuleystay. marka waxa uu sheegay in labada musharax waa John Cornyn iyo Ken Paxton mid uu taageeri doono dhawaan. waxaan weydiisanayaa yiri musharaxa kale oo aan taageerin in uu tartanka isaga haro maxaa yeelay waxaan doonaynaa bisha November inaan kursigaasi ku guuleysano. yaa kula tartamaya Republikaanka dhinaca dimuqraadiyiinta waan idin la wadaagaya. marka waxa uu yiri qof kasta oo anigu aan taageero mar kastaba waa uu guuleystaa cod badan ayuuna ku guuleystaa yiri Trump. marka musharaxa dhinaca bidixda ee dimuqraadiga waa inaan ka guuleysanaa yiri sidaas darteed musharaxa aan taageero maahane midka kale tartanka isaga haro. dhinaca dimuqraadiyiinta ayaa tartamaya sidoo kale Jasmine Crockett oo iyaduna aqalka wakiilada ee Koongareeska Mareykanka ku jirto haweeney 40 jir oo madow ah oo ilaa iyo sanadkii 2023 Koongareeska ku jirtay ayaa waxa la tartamayay wiil dhalinyaro ah oo 36 jir ah oo la yiraahdo James Talarico oo isaguna ku jira aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Texas. waxaana doorashadaasi ku soo baxay wiilkii dhalinyarada James Talarico. James Talarico marka waxa uu la tartami doonaa November labadan xubnood ee John Cornyn iyo Ken Paxton midka soo baxa bisha May doorashooyinka ku celiska ah labadooda loo qaban doono. Jasmine Crockett waxa ay heshay 45.7 boqolkiiba halka James Talarico isaguna uu helay 53 boqolkiiba codadkii doorashadii la dhiibtay. ilaa iyo sanadkii 2018 ayuuna ku jiray aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Texas wiilkan dhalinyarada ah. dhinaca North Carolina iyadana sidoo kale dimuqraadiyiinta iyo Republikaanka basharay doorashooyin Israel reeba ayaa ka dhacay. dhinaca dimuqraadiyiinta waxaa ku soo baxay Roy Cooper oo gudoomiyihii hore gobolka North Carolina ahaa
codad aqlabiyada ayuu kaga guuleystay nin madow ah oo la yiraahdo Marcus Williams oo la tartamay 92% ayuu ku soo baxay dhinaca Republican-kana Michael Whatley oo Trump uu taageeray ayaa 65.5% helay waxaana la tartamay Donald Brown la yiraahdo oo isaguna codad badan ah marka sidaasi ayaa lagu kala baxay dhinaca kale hadii aan eego Iran waa tii sabtidii la dilay hogaamiyihii sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei hadda wiilkiisa oo la yiraahdo Mojtaba Khamenei oo 56 jir ah ayaa waxa la leeyahay waxa loo doortay inuu hogaamiyo wadankaasi Iran wiilkan waa wiilka labaad ee ugu weyn ilmaha Khamenei waxaana in arrimaha doorashadu ay tahay marka la dooranayo hogaamiye sare process dheer ayaa loo maraa wadankaasi Iran marka hore horta waa inuu rag yahay isla markaana diin hogaamiye diimeed uu yahay waxaana doorto golo khuburaha oo 88 ah isla markaana ah aqoon-yahano dhinaca islaamka si aad u yaqaan ayaa doortay marka waxa la leeyahay ninkaasi oo wiilka uu dhalay Ayatollah Ali Khamenei oo Mojtaba la yiraahdo ayaa loo doortay hogaamiyaha sare inuu yahay Iran iyo Mareykanku bartilmaameedsan doonaan mar kale wayna arki doonaa arrimaha ka soo baxa Mareykanku waxa uu la daala dhacaya soo dad gureynta dadka Mareykanka ee ku xaniban wadamada bariga dhexe hadda waxa la leeyahay 17500 oo qof ayaa la soo qaaday safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Israa'iil Michael Huckabee iyo wasiirka arrimaha dibadda waxay leeyihiin wax diyaarada oo gali kara male wadamadaas marka dadku waxay ugu baaqayaan in basas ay qaataan oo wadanka Masar ay tagaan dadka qaarkood Sacuudiga ay tageen oo ay Masar imaadeen kadibna ay ka soo duuleen marka hadda waxa jira telefoon wasaaradda arrimaha dibadda ay tiri telefoonkaasi hala la soo xiriiro laakiin marka la waca telefoonkaasi codkan fariintan ayaa dadka la hadlayso oo dhahaysa Mareykanku hadda kuma caawin karo mana ku daad gureyn karo mana jirto meel dadka Mareykanka laga qaadayo fariintan ayaa marka dadka ay maqlayaan marka telefoonkaasi ay wacaan bal fariintan wax yar la dhageyso Please do not rely on the US government for assisted departure or evacuation at this time. There are currently no United States evacuation points. sidoo kale dawladda Mareykanku waxa ay shaacisay magacyada iyo sawirada afar kamid ah lixdii ciidamada Mareykanka ah ee ku geeriyootay dalka Kuwait markii ay Iran duqeysay saldhigii halkaasi ay ku lahaayeen laba kamidana wali magacyadooda lama shaacin halka sidoo kale afayeenka aqalka cad Caroline Levitt iyo wariye u shaqeysay CNN-ka Caitlin Collins ay isku la dhaceen arrimaha dhimashada ciidamadaasi waxaana ay afayeenka aqalka cad ay sheegtay markasta oo ciidamo ay dhintaan TV-giina waxa uu isku dayaa warbaahinta dhinaca bidixda in madaxweynaha ay ka dhigaan mid aad u xun laakiin arrintaasi ma ahan dagaal ayaa lagu jira isla markaana askari waa ay dhimanaysaa ayaa afayeenka aqalka cad ay ku difaacday isla markaana dood ayaa dhaxmartay iyada wariyahaasi ka socday CNN-ka oo Caitlin Collins la yiraahdo ugu dambeyntii Iran waxa ay duqeysay oo ay gantaal ku riday wadanka Turkiga oo Mareykanku saldhig military oo weyn uu ku leeyahay gantaalkaasi ayaa waxa qabtay ciidamada difaaca ee NATO dhulka ayaana lagu soo riday gaar ahaan bariga badda Mediterranean-ka waxaana burburkii gantaalkaasi ku soo dhacay gobolka Turkiga ee Hatay la yiraahdo waxaana ay Turkigu ku hanjabeen hadii Iran ay soo duqeyso in iyaguna ay ka jawaabi doonaan NATO ay Turkigu uu kamid yahay waxaana jira xeerka shanaad ee NATO inuu dhigay wadan kamid ah wadamada NATO hadii la weeraro in wadamada kalena ay dagaalka ay galayaan marka Iran ayaa ku soo turtay gantaalkaasi mase sidoo kale dhinac kale ayaa looga soo tuuray lama oga laakiin Turkigu waxa ay sheegeen inay iska difaaci doonaan isla markaana iska celin doonaan Iran hadii mar kale ay soo weerarto gantaal ku soo turto arrimahaas ayaan rabay inaad la socodsiyo waxyaabaha kale ee soo kordhay hadii aad leedmo waan dila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta hadii muuqaalku uu cod la'aan ka noqdo bilowga muuqaalka aan soo galiyay kooban ee halka daqiiqa ah oo aan ku sharaxayo qaabka aad codka u furan karto hadii uu ka xiran yahay bal si fiican u daawo markaas kadib muuqaalka hadii uusan cod ka lahayn cod waa uu ku lahaan doona aad iyo aad u mahadsantiin inta mar kale kulmi doono nabadgelyo